boqolka maalmood ee madaxweyne xasan waxaana jira waxyaabo qaranka u leh muhiimad aad u weyn oo u qabsoomay kuwaasoo mudan in la xuso inkastoo madaxweynuhu xilligii ololaha iyo ka horba uu aad uga ololeeyay una weeraray ciidamada xoogga dalka ee waddanka Eritrea tababarka ugu sarreeya ku qaatay haddana bilowgiisii boqolka maalmood wuxuu ahmiyad gaar ah siiyay in uu soo taabto calaamadaha ciidamadaasi madaxweynuhu wuxuu tagay Eritrea halkaas uu si weyn loogu soo dhaweeyay kasakow inuu ciidamada waqti la soo qaatay fagaare loo goloyay ayay isa soo tubeen ciidamadu waxay madaxweynaha hortiisa ku soo bandhigeen gaardi dhaga barjeeyay duqa qaranka waa uu dhex qaaday oo mid ugu tagay madaxweyne xasan wuxuu jeediyay fagaarahaasi ciidamada khudbad dhaymo u ah mar kale riyaaq u leh mar kalena ay ka muuqatay madaxweyne dalkiisu cadow dagaal kula jiro oo ay hortiisa tuban yihiin cudud uu ku baani karo oo ka dhan ah cadaawaha dalka muddada dheer gacanta ku haya in badan oo ka mid ah safarkan si weyn baa loogu majeeran karaa waxaana la dhihi karaa waa halka wax ee u qabsoomay sidoo kale waxaa dadweynaha Soomaaliyeed u arkeen fursad uu iskaga dhaqay meyti xisaabintii 5,000 ee askari ee Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Eritrea ciidankan ayaa dareeyayaasha danaha kale Soomaaliya ay si weyn ugu dawaqeen helidda xogtooda taasoo ay ka dambeysay kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya xogtooda ka yeeshay mid aan aadame ha joogay haad warkeeda heli kali dhanka kale madaxweyne xasan waxyaabaha barbilowgiisa lagu dhaliilayo ama ceebta dul hoganaysa ka dhigan waxaa ka mid ah madaxtooyadii qaranka oo 5 sano qaramaysnayd inuu dib u qoyseeyay waxa boqolka maalmood iyana ah mahadooyin yaabka badan ee ay dul taalo calaamatul cajiibtu dib u furanka kanaalkii xidhnaa 5 sano waa kanaalkii hadimooyinka badnaa ee Itoobiyaanka waa kanaalkii Somaliland Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo madaxweynaha federaalka isku mustawaha ka dhigi jiray waana kanaaladii iyagoo xambaarsan Soomaaliya keenay kuwii gabra lahaa ee girma lahaa madaxweyne xasan iyo kanaalkii uu xiray madaxweynihii hore Farmaajo xiriir baa ka dhaxeeya waxaana lagu xasuustaa inuu xilligiisii hore u gaadhay heer gabre oo Muqdisho jooga Soomaaliya dhexdeeda kaga saameyn badnaa madaxweynihii qaranka xasuusaha kanaalkan burburkii kadib 5 sano oo kaliya ayaa fursad loo helay in daadkiisa hadimeed laga mooso Soomaaliya balse waxa uu ka qaadidiisa fursad siiyay madaxweyne xasan sheekh taasoo ka dambeysay gacal jamashadiisii masaarida fog iyo isku dhextuurkiisii wabiga Niilka dib u furidda kanaalkani waxa ay meesha ka sii saaraysaa sida muuqata is-ixtiraamkii 5 sano ee ahaa laba qaran oo gudboon durba madaxda maamul goboleedadu waxay hal ugu qulqulayaan adistii hore halka sirdoonka iyo saraakiisha Itoobiyankuna sida daadka mulacleynayaan Soomaaliya daanka gees Hargeysa ilaa Kismaayo Garowe ilaa Baydhabo iyo Beledweyne taasoo maxsuulkeedu yahay qaran daad ku furan yahay oo aan deganaan siiya jirin warbixinteena xigta iyo amaan Allah